munaasabad aad u qurux badan ayaa ururka iftiin ku maamusay maalinta haweenka adduunka taas oo lagu beegay 11 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka iftiin oo ah urur u dooda xuquuqda haweenka iyo dhallaanka kana dhisan magaalada Amsterdam iyo nawaaxigeeda. munaasabada maalinta haweenka ayaa sanadkan ka duwanay sanadadii hore waxaana si weyn looga dooday doorka siyaasadda iyo waxbarashada dumarka Soomaaliyeed. ugu horreyn garyaqaan Shamse Siciid ayaa ururka iftiin uga mahad celisay sidii sanad walba isku keenan haweenka Soomaaliyeed si ay uga tashtaan arrimahooda. halka madaxda ururka iftiin Shukri Siciid iyo Raaxa Geesay ay si wada jir ah u sheegeen in ay ka go'an tahay taageerida dumarka iyo carruurta Soomaaliyeed. ururka iftiin oo aan uga baranay maalinta 8 Maarso ama maalinta haweenka inay isugu keenayaan barnaamij noqotaan sanado badan ayay mar walba ay sameyn jireen waagi hore iyagoo la sameyn jiray ururo kala duwan oo wadamo kala duwan ahaa saadi hadda la soo dhaafay inta badan doorkooda ay xooga saareen arrimaha dumarka Soomaaliyeed. marka waxaan baranayaa ururka iftiin iyo sida ay mar walba ay runtii isugu dayaan horumarka dumarka. waxaan jecelahay inaan dhinac istaagno gabdhaha Soomaaliyeed siyaasadda kaliya maaha laakiin maamulka iyo maareynta inay kasoo qayb galaan laga soo bilaabo hoos gabdhaha inay waxbarashada ka qayb galaan oo iskoolaadka la geeyo oo waalidku maaragta ku kalsoonaado gabadha sida wiilku u kalsoon yahay uu jeclaysto inuu lacag ku bixiyo gabadha wax baratay. kulligeen waa maaragtay waxaan nahay qof walba dumar walba waxay leedahay qiimadeeda hadday waxbarasho soo gaadhay hadday waxbarasho soo dhammayn. macnaha waxaa jira in aan ogaano aragtida macnaha bulshada Soomaaliyeed inteeda badan ee haweenka ka qabta ayaa wax ka sasaar sida aniga marka analysis gareeyo aan isleeyahay. waxaa haweenka hadda say boqolkiiba 30 baarlamaanka kaliya ma aha meel kasta wasaaradda hadda 30 ka rabna bilisa hadda 30 ka rabna militariga laakiin waa bilaab gabadha haddii aan wax la barin ma yi oga xitaa waxa ka maqan oo waxa ka maqan ma ogaan karto. marka waxaan leeyahay waxa ugu muhiimsan waxay tahay ama halkaan ha ahaato ama waddanka ha ahaato gabdhaha in wax la baro waxbarashada waa waxa ugu muhiimsan. gabadha markaa wax baratid oo ay wax barato oo dugsi hoose dhamaysato haddayba dhamaysato secondary dhamaysato jaamacad dhamaysato iyadaaba shaqaysanaysa markaas waxay ogaanaysaa waxay xaq leedahay iyo waxaysan xaq lahayn. waxay markaas kusii tartami kartaa xataa dhinaca siyaasadda inay ka qayb qaadato iyo management iyo shaqooyinka. mawduuca Sacuudiga waxaan dhihi lahaa hadaa aniga gabadh Soomaaliyeed ahay marka koowaad inay shareecada ka qabtaa marka labaad maadaama aan 20 sano bilaa dowlad ahayn haweenkaan ka baqaynin in gabadha Soomaaliyeed xaqeeda la burburiyo sidii gabdhihii laga horreeyey oo wadamada kale ka yimid sida Indonesia sida Malaysia. Shamsu waxay soo qaadatay marka ugu horreysay dad badan haween badan oo runtii taariikhda waddanka meel qiimada ka soo qaatay yaa ku soo xigi doona marka dadkaas dadkooda waqtigii hore maanta waxaa la rabaa gabdhihi hadda jooga jiilalkaan iyo jibkiina horteeda fadhiya dad badan oo la xuso inay hadda ka soo baxaan laydinka rabaa. waa idinkaga mahadcelinayaa sida qiimaha badan maanta uga soo qayb gasheen waana ku mahadsantihiin. isku soo wada duub xafladan ayaa ku soo dhamaatay jawi qurux badan. توفيق شيرة موسى Somali Channel مقالة أمستردام عاصمة ودك هولندا.